بسم الله waxaan bilaabi doonaa farxad cusub. السلام عليكم. وعليكم السلام. إيه كورن حالكaaga؟ ما شاء الله الحمد لله. إيه كورن warkaaga؟ خير والله. aniga waxa lagu yiri sheekhan af Arabiga ayuu yaqaanaa marka waxaan kuugu yimid soo ma Ilaahay ku barakeeyo. Ilaahay ku barakeeyo ma rabo inaan ku dedejiyo. ما يحب الله. walaal anigu su'aal ayaan qabaa. halkan shaqa ma taalamiya. anigu waxaan u yimid halkan inaan shaqa ka daydayo. shaqo. والله runtii shaqadu aad bay u yartaa halkan. laakiin haddaad hamiyad leedahay amba aad garasho leedahay yani dee tusaalahaan oo kale waad helaysaa shaqo shaqada waad helay laakiin shaqada halkani aad bay u yartahay aad ayay u adag tahay maxaad oran karaysaa oo laga shaqayn karaya halkan Cabdirasaaq waa 61 jir waxaanu leeyahay laba xaas 14 caruur ah waxaanu ka shaqeeyaa madrasad yar oo quraanka ku baro sheeg adigu maxaad ku fiican tahay micnaha waxaan aqaanaa cilmiga insaanka aqoonteeda ayaa ah taa waan gartay والله شقدادن واحد لكن inaad u bandhigto shirkadaha waaweyn kuwa ganacsadayaasha aad waaweyn waxa laga yaabaa inay ku qaataan markay arkaan CV-gaaga way fiican tahay laakiin waa laga yaabaa inaad shaqo hesho nasiibkayga waan banaawilaya nasiib mid baa yiri wax kastaba alxamdulillah laakiin aniga mowqif ayay la darsay alxamdulillah hadda bil amal baan ahay laakiin wax kastaba khayr bay noqon doonaan يعني maxaan oran karayaa wax kastaba way istaageen adigu halkeed ka soo jeedaana anigu imaaraadka ayaan ka soo jeedaa reer imaaraad baa tahay imaaraad ma sha Allah anagu halkan waxaan u imanay shaqo dhalinyaro ayaan hayn group ah shaqaan u imanay halkan laakiin waan weyni wax kastaba khayr bay noqon insha Allah shaqo wadeelaysan dad u timaadeen shaqo laga yaabo inaad heshaan lagana yaabo inaanad helinba waa magaalo ordina haddii aad hayso xadaarad cusub ama fikrad cusub oo shaqo ku saabsan waayo waxaa jira waxyaalo badan aan dadkani aan arag adigu maxaad ka shaqaysanaa macallin baan ahay anigu masaajid halkana ku taala micnaha quraanka wad xafid maasha Allah si fiican weliba sidaa ogad luqadaad aad bay fasax u tahay maya xoogaa yara adag tahay maasha Allah luqadaad aad bay fasax u tahay aad baan u fahmayaa weliba adigu imsa awlaad ayaad leedahay waxaan arkayaa anigu wax badan baan leeyahay maasha Allah 4 baan leeyahay maasha Allah weliba laba xaas leh ilaahay ku xafido adigu laba xaas baad leedahay laba xaas baan leeyahay ka waran xaaladooda wallahi noloshu aad bay u adag tahay runtii laakiin ugu horan alle mahad u sugnaatay fadligiisa weeye fadliga alle ayay noogu sugnaatay inaan alle ballankiisa oofino waana noolnahay alxamdulillah farxad ayaan ku noolnahay dad alle aaminsan baan nahay iimaankayga iyo diintayada iyo qadarka alle irsaaqadu ilaahay baa qaybiyey anaguna raalli baan ku nahay ilaahay wuxuu noo qoray waanaan ku soconnaa tahay allah iyo nimcad u sugnaatay mabda'aas oo kale anna ku noolahay markan yimid aan isku dayay weliba qof inuu i gargaaro meel aan tago laakiin irsaaqadu meel alaale meesha doontaba haatee waa soo fiican anagu suuqan tagnaa maalintaadna wax soo helno alxamdulillah waan ku faraxsannahay waxa ilaahay na soo siiyeyna waan cunnaa adigu ma waxaad ka shaqaysaa oo keliya malaamadda 14 awlaadaad dhashay ma ku filan tahay markaa wixii kaaga soo baxaa may micnaha waxaan ka wadaa 14 ubadkaad dhashay ma ku filan tahay waxaad ka hesho malaamadda iyo weliba labadaas maya naguma filan okay way maxaad ka shaqaysaa anigu mararka qaarkood waxaan tagaa xagga sayladda xoolaha waxaan kala dilaalnimo adhigan kala dilaalaa maantan hal neef iibiyo wixii nasiibkayga baan ka qaataa ee dilaalnimo aduu waddooyinkaasun ilaahay kuu sahlo laakiin meel aan taga garan maayo aan seexdo san u heli lahaa markaa annagaad marti noo tahay maya wallahi annagaa ku geenina meel guri baan ku siinaynaa waad nala joogaysaa waxbaad nala cunaysaa waanad nala noolaanaysaa aad baad ugu mahadsantahay alxamdulillah wallahi taan uguma jeedo inaan culays ku saaro weliba adiga maya wallahi culaysiguma aniga
wallahi anagu waxaan ka soo qaadnaa arrinkan oo kale arrin naga farxinaya annaga. haddaba waan iska tegayaa. isii taleefankaaga uu kula soo hadlaya haddaan shaqo ku hela xataa waa dad haysta taleefon inaan ku gargaarnaa laga yaabaa. insha allah ana kaa yaraysan mayno. Barakeeyo. ma raba anigu inaan intaan ka badan ku kalifo. aniguna hadh baan ku jira adiguna aad ceed dad socota annaga ceeb bay nagu tahay taasi. waa ku sidee adigu martida iyadaa tahay ilaahay ku barakeeyo. anigu magaalada ayaan ka mid ahay imika muddaan joogay haddan. insha allah culays walba waa furmi doonaa. maalinba canbacaan wey. insha allah ilaahay faraj furi doonaa. magacaaga ii sheeg. aniga magacayga Qiith ayaa Qiith. yidhahdaa. maasha allah magac fiican baad leedahay. Qiith waxa weye meeshuu tagaba micnaheedu wuu baad anfacaa. sheegtay. insha allah waanaan anfici doonaa. insha allah dadun bay gargaari doonaa. waa haddii alla ii qoray. insha allah. anigu su-aal ayaan qaba intaanan kaa tegin. soo daa. aniga ka waran haddii aan maalin maalmaha ka mid a aan kuu yimaado oon ku weydiiyo waxay riyadaadu. wallahi aniga riyadeedu waxa weeye inaan guri helo marka hore. ini gurigaaga maya maaha. waa kiro kani aniga aqaladan ku jiro waa wada kiro. marka adigu miyaad awooddaa inaad iska bixiso kirada. maya wallahi. micnaha adigu haatan deen ayaa lagugu leeyahay. aniga 6 biloodba waan iskugu geeyaa lacagta kolba wixii liigu leeyahay waan iska bixiyaa. samrayaan miyaa. aad bay igu samraan. alxamdulilah. waayo kuwa guriga iska leh dibadda ay ku nool yihiin marka aniga way igu caawiyeen. waxay dhaheen lacagta kolba intaad isku geyso akoonkayga nagu shub anna akoonkan ugu shubaa kolba waxay la ugu tuuraanna. dad badan oo deemi lagu leeyahan baan arkay. ilaaha gargaare. bal warqad ayaan ku siinayaa. warqaddaa hayso waayo macluumaad fiican baa kugu qoran. waxaan laga yaabaa maalin maalmaha ka mid a inaan kulanno. waxbaa ku qoran. macluumaad baa ku qoran. haddaad doonto waad akhrin kartaa. eeg haddaba waad ku mahadsan tahay waayo waad rabtay intii karaankaaga inaad i caawiso laakiin anigu taa umaan iman shaqana umaan iman. anigu waxaan u yimid halkan inaan adiga gargaar yar ku siiyo oo diimahaas kaga bixiso. tanna waa fadliga alleh ee rabbilcaalamiinka ah. mid ayaa hadda ka hor igu yidhi alleh ayaa sabab kaaga dhigi doona isbeddelka. tanna waa gargaar yar aan ku soo gaarsiinay adiga. dadka walaaladeen ee khayrka jecel ayay ka soo gudubtay. insha allah adiguna waad noo ducayn. anna aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinaya cabdirasaaqow. ilaahay caafimaad ha ku siiyo. baaraka allahu fiik. adigana ilaahay ku barakeeyo. insha allah ilaahay jannadaa nagu wada gulansiiyo. allahuma aamiin. oo alla dunuubteen oo dhan ha dhaafo dhammaanteenba insha allah. oo alla cumrigaagana ha dheereeyo. raxmadda allana allah kugu sugo. dhammaanteenba aamiin. haye laabtan ku gashta hal mar. ilaahay ku barakeeyo. aad iyo aad ayaad u mahadsantahay sheekh. ilaahay arsaaqad waasacana ha ku siiyo. hayse saamaxno. insha allah. allah inoo wada gargaara dhammaanteenba. aadmi baahan bayn nahay oo raxmadda ilaahay ku barakeeyo. maxaan kaloon kugu gargaari karaa. ma qof kalad caawiso. maya maxaa kale adiga aan maya wallahi bes intaas ay u baahan tahay. wallahi waxaan ku weydiiyey gaarigan ma adigaas kale. maya haddaba eeg how qabso. gaarigan aadan kugu talagalnaada iskale. waad ku shaqaysan karaysaa amba qof baad u dhiiban karaysaa kugu shaqeeya oo masaariifta kaaga kala dabara. ma gaadhigan. gaadhigan. ilaahay ku barakeeyo. ilaahay khayr ha ku siiyo. aamiin. adaana yeeshay. laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah. qof ayaana kafaalo qaatay oo kaa bixiyey. adigaana nasiib u yeeshay. allah ayaan ka codsanayaa inuu ina wada barakeeyo dhammaanteenba. idinkana muraadkiina alla idii toosiyo. adigiyo intii wanaaggiiyo khayrka ummadda gaarsiinayaba ilaahay dunuubteena ha dhaafo adig iyo annagaba. allahuma ilaahay nagu wada kulansiiyo jannatulfirdowsa.
اللهم آمين. صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه عليه وسلم. الصلاة والسلام. هاتنا نقول اسكتك يا شيخ. الله أكبر. دمان أمدينا إن الله سيدي بان كل صحري إلى أمريكا هذيك. الله أكبر. إن شاء الله ودي هيلي دونتا دتك أدق نوكا كيني إيجا إيه إسكين ودا كلن سين دونا إن شاء الله. إن لا بتنكو كلي. waxaynu joognaa duni aakhir zamana waxaynu nahay dad islaamka astaamihiisa ayay ka mid tahay in keena maalqabeenka ah oo u naxariisto una gargaaro keena baahan si isagana alle irsaaqadiisa uu asiiyo. waxaynu joognaa zaman keena ladani uu ku tumanayo keena daciifka ah. waxaynu joognaa zaman aadamaha alle abuurtay lagu kala takoorayo. waxaynu joognaa saban dhigmeerasho laga dhiganayo dadka ducafada ah. waxaynu joognaa saban aan keena maalqabeenka u naxariisaneen keena aan waxba haysan. alle subxaana wa tacaala ayaa inagu imtixaamaya oo waqtiguna waa isgedgediyaa. haddii aad maanta ladan tahay beri taagnaan maysid meesha. waa lagugu imtixaamaya adduunka alle ku siiyey ka aan waxba haysanna wax la'aanta alle waa ku imtixaamaya. haddaba soomaalideenu maxay dhaxashay? soomaalideenu waxay dhaxleen kala sarreyn, qabyaalad, isfaquuq, cay. ka wax taraya ka miskiinkaana wuxuu noqday mid ku taageeraya amba wax ku taraya qabiil iyo reernimo. alle subxaana wa tacaala haynoo gargaaro, hayna garansiiya xaqa, wanaagga iyo dadnimada. muslimku maaha mid xaqira amba dulaysta walaalkiisa muslimka. waana habdhaqankii Soomaali taas ay leedahay. allow noo sahal, allowna garansiiya xaqa, allow dadkayaga ka dhig dad isku duuban oo qulubtooda saafi isku tahay.